aboowe hurdo meeli xanuunkeyga waa kana saana u yaala 3 bilood qof bini'aadankee waay Queen of Ajuran walaasheen Amish oo waayihii dambe muran badan la geliyay nolosheeda walow dadka qaar ay dhahayeen walaasheen Amish ama ay ku tilmaamayeen inay geeriyootay ayaan maanta waxa ku soo booqday mid kamid ah istaalada ku yaal magaalada Nairobi halkaas oo bilooyinkii u dambeeyay ay ku xanuunsaneed ayna jiiftay walaasheen maanta waxa waay safar dheer ayaan ayada u soo galay si aan xaaladeeda caafimaad iyo maanta waxa idinka doonayna idinku soo bandhigno Amish halkan waxay ku jirtaa in muddo ah xaaladeeda caafimaad halkaas lagu tacaalayay dadku inta badan way yaqaanaan xaaladda ka jirto magaalada Nairobi iyo qof markuu isbitaal ku galo halkan waxyaabaha uu kala kulmi karo ama sida yani istaalka xaaladiisu ay tahay maanta codsi ay wadataa codsigaasna si guud ahaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ayadana markii hore nila hadli doonto haddii Ilaahay yiraahdo maadaama in muddo aad weydeen Amish marka koowaad Amish ayaa mikrofoonka wareejinaya si xaaladda jirto ay nagu waranto dhammaantiin horta waa idin salaama asxaabta qaaliga ah meel kasta adduunka ka joogtaan ilaaha mahad iskale maanta haddii aan hadlaayo horta geerida iyo noloshuba ilaaha haayo waxaa idinka codsanayaa walaalahayga ummadda islaamka dhan inta ii soo ducaysay horta waad mahadsantihiin saas ay tahay in muddo waxaa ku jiray isbitaalka ugu dhowaad 3 bilood waxaana kaaga mahad celinayaa maanta walaalkay Nuur Abko uu isoo booqday qofka ugu horeeyay maanta uu isoo booqdo uu noqday aad ugu faraxsanahay tan kale aan sheegay meesha maanta caawimaada idinkaaga baahanahay isbitaalka muddo ku jiray alxamdulillah ilaa mahad iskale hadaaba maanta hadlaayo waa ilaahay mahadiis kaliya waxaan rabaa inay caawisaan isbitaalka qarashkiisa iyo inay garab qabataan oo waxaa la igu leeyahay lacag gaaraysa milyan iyo bar intii daawooyinka iyo wixii la bixin karo waa la bixi laakiin intaasa igu harsanaa idin leeyahay inay caawisaana idin ka rajeynaya iyo caafimaad intan in ka badan inay heli doonaa rajeynaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo horta Amish maanta waa inooshahay bari markay geeriyooto kulley meel loo wada socdoon la inkiri karin waaye qof walbana uu aadi doono insha Allah walaashii haween Amish isdaji insha Allah waxa waay waa laga baxayaa ciriiriga waxa waay sideed waxa ka dambeeya waasax insha Allah haween walaashii waxa oonay makasasa qolka mugdiga aan ku jiray xanuunkan soo maray weligay noloshayda aboowe ma soo marin wallaahi noloshayda ma soo marin weligay ilaahay waxaa ka baryayaa inuu igu dhigo mid ha ku toobad keeno waxaan rajeynayaa mid ha ku toobad keeno in ilaahay ka dhigo qolkan waa mugdi waa ku gubtay aboowe hurdo meeli xanuunkeyga waa kana saana u yaala 3 bilood qof bini'aadankee waay dambi dhaaf Ilaahay kaaga insha Allah walaalayaal walaasheen Ilaahay caafiyo marka koowaad marka xigta waxaa idinka codsanayaa in haddii muuqaalka idin soo gaaro Ilaahay dartiisa u sheergareysaan walaasheen maanta inoo baahan tahay aan garab istaagno waa gabar Soomaaliyeed waa gabar annaga dhan inaga wada dhexeedo waaye gabar Soomaaliyeed waaye insha Allah Amish waxaana la wadaagtaa lambarkaaga nambarkayga waa 0799976599 magac ku qoran Aamina Cabdullaahi ayaa ku qoran kaliya idinkama rabi inaa wax isiisaan ducadana waa rajeynaa inay ii badisaan waa idin baryaa ducada kaliya igu kaalmeeya insha Allah waa lagu duceynayaa walaashay waxaan kaloo kaa rabaa adoo ka bilaabaya balaas 25 47 47 99 waxaana ku qoran Aamina Cabdullaahi ayaa ku qoran walaashana Allah caafiyo maanta Amish qofkii soo garab istaagi waayo oo xaaladaas ku dayriyo waxaan dhihi karaa qof qalbi yani naxariis leh oo walaal Soomaaliyeed ama walaashii Soomaaliyeed u naxayo ma ahana isdii karaa Amish aan garab siino maanta. Assalaamu calaykum.